السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa daalacan news channel daawadayaal meel kasta oo joogtiin waxaan idin leenahay kula wanaagsan. xubinteena warka waxaynu ku soo qaadanaynaa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo lagu dhagan yahay sheegana inuusan muwaadin Soomaali ahayn. ilaa 6 dhawaan oo aslaan Soomaali ah oo ka mid yahay Aadan Barre Ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya ayaa waxa ku socota baaritaan la xiriira inay haystaan dhalashooyin dalal kale. Aadan Barre Ducaale wuxuu iska fogay eedamaha lagu sheegay inuu haysto dhalashada muwaadinimada ee Soomaaliya iyo Kenya, wuxuuna ku dooday inuu marnaba ku fikirin inuu qaato dhalashada wadan kale, isla markaana uusan weligiis qaadan doonin intuu nool yahay dhalasho kale. hadalkaasi ayuu waxa uu sheegay shalay Khamiis Ciid kadib markii ay guddiga la dagaalanka musuqa ee dalkaasi ee loo soo gaabiyo EAWC bilaabeen baaritaan la xiriira eedeymo loo haysto dhowr xildhibaan ama mas'uuliyiin dowladeed Kenyan ah oo la sheegay inay haystaan laba dhalasho double nationality. madaxa guddigaasi Tawali Mubaarak ayaa sheegay inuu guddiga qaadi doono tallaabooyin isla markaana ay suurtagal tahay in saraakiisha xildhibaanada lagu helo arrintaasi laga xayuubin doono xilalka ay hayaan waaba haddii ay haystaan dhalashada dalasheeya. hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo salahan ka soo jeeda Soomaaliya lagana soo doortay deegaankii hore loo oran jiray NFD waqooyiga bari dalkaasi waxa uu carab ku dhuftay inuu yahay muwaadin Kenyan u dacada isla markaana uusan haysan dhalasho dal kale. waxaan ay Kenyan dhiig ahaan isla markaana waxaan markasta ahaan doonaa Kenyan ayuu yiri Aadan Barre Ducaale oo shalay qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka. waxa kale uu sheegay in jireen dad sheegaya inuu isagu haysto dhalashada Soomaaliya kadib markii uu isagu ku gacan saaray in la ansixiyo in dejinaha Kenya u joogta dalka koonfurta Korea loo magacaabo haweeneyda lagu magacaabo Mawanda Mawazi taasi oo haysta dhalashada dalka Mareykanka. wuxuu intaas ku daray in guddiga difaaca iyo xiriirka dibadda baarlamaanka Kenya la soo dhigay bishii June 6 sanadkan warbixin lagu ansixiyay 6 danjirayaal oo la soo magacaabay balse ay guddiga laaleen magacaabista Mawanda Mawazi oo iyadoo loo magacaabi lahaa danjiraha Kenya u jooga koonfurta Korea. haweeneydaasi ayaa la sheegay inay ka meermeerayso inay ka tanaasusho dhalashada Mareykanka sida uu sheegay Aadan Barre Ducaale. dhinaca kale tobanka xildhibaan ee ka tirsan baarlamaanka Kenya lagu eedeeyay inay haystaan labada dhalasho double nationality ee ay baaritaanada ku socdaan waxa ay kala yihiin Aadan Barre Ducaale, Yuusuf Xasan, Safiya Cabdi, Aadan Xaaji, Maxamed Daahir Ducaale, Maxamed Gaarane, Charles Naguzia Nguma, Jame Kihara, Ledama Olekina iyo Susan Kihiya. baaritaanaas ayaa yimid kadib markii dhaqdhaqaaqyahan lagu magacaabo Okiya Omatu ka codsaday guddiga la dagaalanka musuqa ee dalkaasi ee EAWC inay baaritaan ku sameeyaan 10 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Kenya oo haatan shaqeynaya iyo xildhibaan hore ugu tirsanaa oo haysta dhalashada ama baasaboor